anigii libaaxii sallu calaa nabi assalaamu calaykum soo dhawaada qaybtii saddexaad iyo sheekadii anigii libaaxa maxamed albaabkii isku sii dhuftay hadalkii u dambeeyana wuxuu ahaa waa inaanu banaanka isku aragna kuma dhex murmi karna guriga xilli dambana waheda waa la hurday ayaami yar kadib oo tiraba 3 jeer aan ka cudur daarto markaas intii isoo wacay u dhahay hey waan ka soo socdaa shaqadii si diyaar garow waxaan rabaa inaan banaanka tagno oo aan diiday galbaha qaar khaalidkiin ku maraateen guru khaalid banaankaan rabaa si aan guriga la iigu iman oo dhinakan saalaxa la diray ibaa la khaalid ayaan inanti nootimi inanti maxamed isjeclaayo markaas waxay dhahday weela hadasho waxa ku dhaday gurigan kugu sugaya sidiisii markay 10kii habeenimo maraysay bay tiri caawa ma tegayo wax kasta hadday dhacaan ma tegay waan ku sugay anna waxaan ku sug tegi wuu yimi roobaana da'een wuu yimaadeen xilli kooban 10kii barkii ama 4 saac bara ayuu miyada roob da'ayo jigti qolka furihiisaan u maqalay aniga soo jeeda muuna soo jeeda iyadii baa soo jeeda because iyadii baanu la soo jeedno la walbahaarayne walaalay maxaa iga qaldan walaalay waxba kaama qaldan gabar qurux badan baa reer hantiila ah ka dhalatay oo magac magaalada kule sidaa u eeg jaamacad wadanka ku dhamaysay yaaba ka heli kara aniga yadii muun waxaan dadka iska deegaashka soo maaha maysaa kuma na dhihin laakiin waan u dhisnay iyadoo waxaan ku nahay yaa ku heli kara gabar jaamacad dhamaysay reer magac leh ka soo jeeda kaale iska araga ninkani markaasay muuna de qof waaye araga bay waxay jacaylkaagu itixaamaya naya ka duba hadhay ninka hayabay tiri adigu markaan furihii maqalnay buu qolkii ugu gashay wax ku dhacay anagu ma garanay Soomaaliha buuq baa dhacay de maxaa telefoonka iga qaban maxaa aan kara inantii ooyay soo wabaadahay waana goorma 12 habeenimo weeyaan reerku wada hurdaa ayaa qolkii noogu soo gashay anigii intaan iskala garan waayay inuu diliyay in wuu ituuray markaan ugu dhahday saasuu ii gambiyay anuu habada ka babaya baan qolkiisii kaga sii gigigigig wiiga furay amir beela markaan ka gabadhii ooyay mugto wariya maxaad gabadha saa ku gashay binaadan kama tihid maxay waa tihid intuu eego labada garab i qabtay oo sidaa lay kala wareejiyay baa kursi halkan yaalo kursigan iskula computerkaas ku qabtay rag laygu siiyay dabada soo binaadanimada oo inta gabadha kala u doodsan aniga tayda maxaad ugu dood weyday hada gabadha saa uga damqanaysa tayda maxay uga damqan weyday anu waxaan kugu akhriyay muxuu ahaa markaasaan maya naya bu dhaxma ku sheega ahaa gabadha sheekadeeda laguma dirnay taan adiga ku weydiinana ka hadal adu gabadhi waan ka soo baxay gabadhi weyn habeenka waxaan ku nala seexo waan maslaxnay meel kaza ka dhukanay raalli ah qofkan xina qutuuca ah de anigu oran maayo anigi baa la igu soo leeriyay moogtiin subaxii baad barqadii markay toosan quraac u sameynay naga tagtay ugu dambeeyna galabtii dambe ayuu wuxuu dhahay gurigan hortaaganay soo bax waanu israacnay meel banaanka waan soo tagnay oo dhalinyarta xasab fadhiistaan aniga go'aankaygu kaas weeyaan baan ku dhahay isku ma galeno isku gaari ma fuushanin isku level ma nihiin jaamacad ka soo baxay baa tahay anu reer magaalka dhanba 3 sanadood baan hadda ahay hadaan ka yaray isku ma galeno gabar jaamacad dhigatay baa ku qalanta nin taajira baa tahay qof gabar taajirada ku qalanta anigana levelkayga ay qalma soo dhaynto qoslina ma ku dameerlaad la sheekaysta بسك بيها حافتك كان كيرا بيها معانا حافتك كان كيرا وأركينا ورشير بوسو ملا أنا واسك هذا البناي أنا لا سيها يوم ملا يركو نمك بيها حافتك كيرا تخرطي مي هذا وقت ما يرلا أبا مايا واحد يقول دي أنا وحبيجي ما قلني هانتي ذا من كتب عضي أبا هيوي هذا أنا مشهر أنا وحن كقاتا وحن رجيني مستقبل كم مثلا أنا وإسكالينا طبعا waxbarashadan iyo jaamacadan waxaad ka sheekaysan qofka bini'aadanka xorb iyo wuxuu dooranayo anigu shakhsiyadaada mas'uulnimadaada iyo aaminnimadaada iyo maxaan ku dhahdayay sharafta gobadha guriga ku joogtay wareegayna meel aadaynin garashada ilaahay ku siiyay intaas ay soo jiidaton ku raacan iyo xishoodkaaga waxba igama gelin waxaa tahay dadkana aniga waxba igama gelin inaan mikrofon qaata tabtan magaalada taa ugula soo wareego anaa gabadha jecel raba iiga leexda maya warka bedel adigu muran iyo kaftan iyo wax isku jirjira kadib waan soo laabanay anigu laakiin wali rajil aantii baan dhiibay halkan ay sheekada marka bartankeeda dambe ka bilaamaya maamadii maxamed dhashay way soo laabanaysay adigu gurigii wixii baanu sii kala habaynay way timi waxa la socotay walaasheed oo Dubai ka soo raacday laakiin walaasheed qurbahay jirta meelaha Yurubtay degantahay reerka Yurubtay u badnaayeen beriga malaha Mareykanka saalooma aqoon be
adigu gurigii islaantiina qol baan u hagaajinay islaanta markaa islaan aanan ka helin bay ahayd islaantan oo habaryarka ah maxamed shirkadeedu weli qarsoodi bay ahayd maamadii adigu ii mahadnaqday dahab dhaga ah bay ii keentay dahabkii horeyaan xidhay bay noqdeen maxamed aniga qudhayda waa soo dabcay waana waxaan ka baqayay because markii hore waxaan islahaa waanan arkay oo dadka lacagtale markay sheekaysaneen had iyo jeer iyagoo wax liidayaan arki jiray sababta darteed baan anigna suspecti uga qabay waxaan markaa ku go'aansaday hadday maamada timaado guriga inaan iskaga tago oo meelayaga iyaga kale u shaqo tago waayo dad badanoo markaan isbarbaranay baa jiray oo reerkaan isku barbaranay way timi maamadii maxamed baan markaa arrintii u sheegay wuxuu sabab marka waxaan ku dhahay wuxuu dhahay anad iga fogaanaysaa maya adiga kaama fogaanaya laakiin saas maamadii markaa maalin soo bandhigay markaas waxaa dhahay sabab maxayd wax kugu sii samaysay ma nimanka yarar guriga jooga wax kugu maya saaxiib lilaahi yabaan maxaa dhacay ana shaqada ku caajisay haba shaqayna guriga iska joog maya hooye waxaan rabaa inaan magaalada ka tago dad xagee aado xaggaa iyo inaan ku noqdo gobolladii kale adigu maamadii way iga diiday waxaa dhahday waayo inta islaamtan martida iyo waxaan ila joogaan ila joog intii aan ka baqayaa dhacday oo maxamed anigina waan kusoo dhawaaday jacayl baana dhex maray maamadii maalinkii dambe maxamed baa u yeedhay hooyadii baa u yeedhay odaygii guriga lahaa bay u yeedhay qolka fadhigaa laysu xidhay waxay tii inantaydii heblaaye hebel hebel ugbaad baan inanta magaceeda ugbaad ma sii xasuusna ugbaad umalkumar baan maxamed oo ku siiyey kuuna dookhay habaryartaa macaan baa kuu dhashay haddaad rabto halkan inaad ku qabtana diyaar way kuu imaanaysaa shiratoon baan uga tumaynaa haddaad rabta inaad dhooftana diyaar baasobarkaagu miisku saaray warku waa ka odayga isaguu ka aamusay way faamiliga islaamtu waxay ahay faamili yara dhib badan intii aan reerka dee la joogay baan ararki jiro hooyadii waxay tiri waa sax yaad kala guursan lahayd habar wadaagtaayo jaamacad ka dhamaysay iglaan oo kaasoo maxamed warkii lama qumanan wuxuu ku dhahay anigu qof ehelkayga ma raba inaan guursado meesha iyadan laga kacay qof ehelkayga ma raba inaan guursado ma aaminsani baan ugu ehelka haddaan cid ka guursanay dee magaalada san dhawshadan aan kasoo guursanay taan idiin keena arka maamada waxay tiri maya maxaa habara kugu dhacay dhiig karba isku riday biyaa lagu rushay horta biyahaasna anuu ku war hela marka markii hore maanafne muunadana shaydaamada dadka albaabada ka dhegeysan jirta wuxuu bitnaayaa naagta habartu wayna nacday anigii muuna muj waxay nagu aragtay hadii jir wayna ruufi jirtay nayasha haddaan u kana xataa kusoo darso kartaa ka yaree waa kusoo badisana iga celiya na dadkan guriga ku jooga ma si fiican u tiraahday dadka ixtiraama saas buu isku yegsin haas cishid xay ka timi amar ya xaasil maxamed isagu halkiibu ku dilay laakiin saanta way soo xusay hooyadiina way xanaaqday marka habar yar tahay meel dhiikar ku ridaa rabta waa ka anigu gurigii waan ka tegey waan ka baxsaday weliba maxamed xujuu igaga dhigaa markastuu yidhahdo in banaanka isu raaco inaan dhahdo ma soo bixi karo hooyan taleefonka uga sheegay inaan isjecelnahay ana intaasa ka baqi jiray inanaan isbaranay oo iyadii reerkooda baan isbaranay baan magaalada dhinaca baan u tegey maamadina intaan taleefon uga soo daro waxaan ku dhahay miyi baan u baxay muddo kadib inaan soo laabtaa laga yaaba oo adoonii sheegin miyaad iska tegaysaa dharkayga xataa maan wada qaadan waxaas ayaa lagu arkin intii ii muhiimkahayd baan qaatay muhiimadeeduna waxay marda islaantii diiday inaan ka tago inaan guriga ka yara fogaado maya waxaan ku dhahay dhib male sikadiisaba wax usoo dhaceen aabahay baa wax laga soo sheegay aabahay wax laga soo sheegay waa kaas waa wiig markaan kasii maqnaba maxamed reerka u yeedho wuxuu ku dhahay dhegeysta gabadhaas meelay qabatayna ma jirto magaaladiina dhinaca ka joogtaa wuuna isoo helo toodii guriga joogta doofaarada ii sheegtay tiro anaga nala joogtaa maxaa isaga inaan ka dhunteen rabay runtii waayo waan ogaaday dee sheekadii ninkii gabadh la siiyey gabadhaas waan rabaa halay guuriyo maamadii sidii igu wanaagsaneyd ee isaga dhashay hal marun bay 360 digrii wareegto maxay tiri gabadha shaqaalaad guursanaysaa maadooyina hebel hebela maadoo wasiiro kasoo qayb galayaan arooskaaga maadoo maxay kala imaanayaan maadoo suudaanka reerka iyo maxaan ku dhahay ugaaska reerku imanayaan ayaad rabtaa nagada shaqaalaha in la soo fadhiisto ee aanay cid ay tahay baanaan garanaynin heblaaya noo keentay heblaaya saanta cadanaada dee reer hebel bay sheegataa aabahayna waxay tidhi miyuu jiro hooyana ma hagee loo raacayaa yaa yaqaana mana tar guriga shaqaalaha ka ah ma intii bay cuntadeeda kasii hesho cuntadaad rabtay inaad guursatay iyada ma rabtid halkan kula rabiy halkaas la rabto xoog baad isku riday baayay qabtaay qariyay maamadii wax qabqabtay na maxay ku sameeyay waa la waay ajaayib soo maaha waxaan filayn baa helay
waxbaa ina helaya adigu islaanta waxay tidhi maxarin adduun iyo maxarin aakhiro farna duco farna habaar maxamedow inaad inantaa guursato walaashay dhashay haddaanad xataa iyada rabin inantaa doontay maanta magac reerkoodu leeya magaalada degan baan kuu dhisaya laakiin gabadhaa shaqaaliyi aniga na kala qari sheekadii waxaa ku baraarugay khaalid yidhi milga oo milga gabadha ka wanaagsane maahira u dhisi lahaydeen waa ayo teleefonkaygii wuu soo wacay adigu muddan ka qabqaban waayey ugu dambayntii waan ka qabtay gurigu igu yimi canaan buu indhaa igaga jaray naayaa maxaad hore igu sheegi weyday naa maalin kasta maxaad mid markaa meel footo ku haystay oon isku yara warwareegi jirnuu ogaa naa wixii footoola ahaa baan kugu tirinayay maxaad hore iigu sheegi weyday waxaan ku dhi dee dhacday wuxuu aabbaha halkuu ku dambeeyey iminka waxaan ku dhi aabbahay waanigii horta maan idiin sheegay maamo maalinta suuqa iskaga soo baxnay si kedisaanoo bila naqaamo igu tiri nayaa waa lagu waayey orgob waraaba kugu cunay maxaad libaax dhexda baa la moodayay waa lagaa samray miyaad noolayd ayaydaa 3 bilood ka hor bay dhimatay maamadana ayay darsal maamadaas waxay ugu tiri aabbaha magaalo hiblaayi u guuro dukaamadiisa u rartay waxaan ku dhahay aabba magaalo hiblaayi u guuro gaaran waxa sana waan raadinaynaa buuri hibadan kasoo qaadana waa isu kunguurin war waxaan ku dhahay xaggee lay geynaya adiga arkay hooyada waxa ay dhigaysay khaalid markaa uu gurigii ka dhexdooday islaantii ku soo bodo habarka ahayd naadaastadu la xuraa shigniga yara basbaaskay mooyaha ku tumato la dhuuqaa ma reer nool baad moodinaya naagaanad garna baad reerkaaga intaad dhex fadhiisisay aad ka tagna hadduu odaygii kuu bad qabaan odaygii kaa guursanaan u miyaraysan waad nabad qabtaa iska aamus ilaahay baa shimbigayga kaa dhigay ii kaa soo diray maamada teleefonkaygii bay soo wacday oo lambarkaygii way heshay muuniya ma garanay cid siisay cay haddii jirta cay bay idhig dhigtay yaa ku yaqaana yaa ku garanaya waxay ku tiri maxamed waxay ku tiri waxa kamid ereyada ku tiri ina yaroo aanay meel ka timi la garanayn oo hiblaayo noo keento islaanta cadan ka timi oo cid ali cid tiba aanan meel loo raacal hayn miya doonaysan reerkayga keento adoo in hebel waa kaas saata waxay ku tiri magaalada waa kaa mustaafirinay magaalada ma joogaan ku dhay magaalo hiblaayo joognaa waad joogtaa bay tiri magaalada aad joogtaa waan ku ogahay haddaanan kaa mustaafirin adigu odaygu markii hore wuxuu ku yidhi milgo waa ina wanaagsan oo sharaf leh shaqadana de hadday shaqasaasi xooggeeda imaalaysa inamay baryaynin hadday iyagu is rabaan maxaa isugu diidaysaa maamada markaa adigu marba dhinacsay uga wareegaysa markii dambe waxay tidhi aniga inanta walaashii dhashaa diidan tahayoo reerka yagaad nacayb u qabtaa naayaa shaqo kuma lihin buur ma halkaasay kaa maraysa ad inankaaga wakaa intaad u guurinaysa aday ku jirta maalmaa ka mida markaabaa duhurkii waxa soo garaacay albaabka dumar inantii gurigeeda sahra leedha intan saaxiibkan ahay inantii baa ka furtay 3 dumar weeyaan niqaamaa la xidhan yahay xijaabo milga ma joogtaa markaas waxay ku dhahday milgu haa oo yaa ahaydin ilmaadaradeed baanu milga ilmaadaradeed oo magacyadiin intii hadalkii wada inantii waxay aragtay wax sida xijaabka ku ah saasoo kale uga soo horeeyay marka way shakiday albaabkii bay yaraysay oo in yar furtay wayba ku soo daafaday baangayaal bay sitaan dumarku albaabkii hadday xidhna dhagax baa dabadana loo qabto aniga cabsi boolis bay inantii wacday way naga tageen askarta intaanana soo gaarin bay naga tageen xaafadii markay soo baxeen waa maxay heerka maxaa lagu maray walaala dadka qaar baskar dhib badan moogti markay dhadaan maxaa dhaa sheekada inaa yareedan gardan maxaa u qarsanaysaa naariyaanta gurigeena laydinka jijibin lahaa dee iska eriya haddii reerkii horeba soo eriyey ani cid ma haysto garab ma haysto meel carara ma haysto magaalo cid kama aqaan ehelade ehelkii qabiilahaan waa joogaan laakiin dee maxamed muddan reerkii gurigiisa isku qarqarinayay maamadii imay soo helin markii dambe inanta way iga hayso inan kale samiiro la dhaho cusub aroos cusub meel fog degan bay habeenimo ii geysay waxaanan u malaynaynaa inay khaalid soo daba galeen dadka guriga arkayo khaalid baa inta badan cuntiyi waxay inta suuqa nooga soo qaado ii iman jiray marka waxaan laga malanaya isaga soo daba galeen way dadna arkeen duraba shaqaalaha guriga ay soo daba geli karaa maxaan ka garan karaa aniga way kan maxamed dibi sumaanaan araga maahir inantaas ii geysay inantaas muddo ku dhuumanayay dee ma shaqo tegi karo suuqi ma aadi karo waxaan ka baqanay in la isoo ogaado aniga dhan mooji islaantii mana waa tan markasta iisoo hanjabaysay ee igu lahayd magaalada waan kaa masaafurinaya haddii kale naftaadaad waayeysa khaalid maalinkii dambe isoo aadi murugatan la soo hadlay wuxuu igu dhahay milgooy waan ku salaamay iska waran nabad fiican tahay maanta ma faraxsani adigana waxaan malaynaa inaad farxi doonin walaal yaa dhintay yadha maxamed gabadhii baa loo mehereyey maamadii noo habar ahayd sidii unbay isu suuxinaysaa markasta waxaa dhahaysaa anigu walaa hooyadaa la dhashay miyaad hadalkayga diidaysaa hooyadiina waxay ku tiri maxarin ifii mid adduun baynu kala nahay waddankabana waan kaaga tegaya haddaad hadalkayga diiday
oo reer gabadhii maxamed waa loo meheriyey dee anigana xaalka igu sii adkaaday waxaana markaad weydaa buu qaali kuu noqdaa berigi hore ninkaa dheer quruxda badan jaamacadda kasoo baxaye waxaan kura cadarka kasoo uraya daaradda markuu dhex maro saacad kadib aad urinaysa dhahay halkan maahir baa maray waxaas umaan islaa markii hore ha ku dhawaanin yaan isku level ma tihidin isku maxaan ku dhahdayay laakiin markan wixii markii xaggi kale isu rugtay baaba aniga qudhaydii malaa jacaylka igu batay horta habeenii maalin baan iska ooyayey waxaan iskaga ooyayey mooji hooyadaan iska xasuusto waxaan sidaad hooyo lahaan lahayd gosheedaad geli lahayd maanta aabbahaana waa kasoo ku dayacay cid kale maka taqaanid magaaladii maanta haddii suuqa lagugu googooyo cid kaa celinaysa male waxbaasaa isugu kaysa sawire aanan garanayninba sahraan habeenkii lasoo hadlo waxaan ku sahraan aad timaadaan doonaya gurigii bay igu timido warkii baan u sheegay waxay tiri maxaynu sameynaa waxaan ku waxaan sameynaa tahriibaya xagaad u tahriibisa ma lacag badaysta waxaan ku dhagahan aan sito iyo waxaa jira fargal yaroo lacagtan urursaday hore fargal iyo gacan baan siistay wixii kale waxbaan iskaga cuncunaye dahab guriberigaa iska jabnaa fargal iyo gacan yar baan waxaan siistay lacagtii berigii ugu horsan iyaga u shaqaynayay aan ka helhelay marka waxaan ku dhahay 40 shay dahabnasta waan iibinaya Yemen baan naa Yemen maxaa ka jira bay reeraha khadaamada noqonaysaa ila tariya la maraa Yurub halka looga dhoofaa lacagtii silsiladii iyo fargalkii silsilad maaha gacantii iyo fargalkii iyo labadii dhigoodba waan soo iibiyey adigu magafa xataa lacagtiisii berigaa magafa mataqaan inta la qaadan jiray $200 buu ahaa waan iskaga dabaray Tripoli baan sidii ku galay Tripoli waatan hadaba iska qabo horta intaan isoo sheeko dhaafay xooshkii waxaa kaga jabay lug qaar bay wuu meel baa laga dhacaa ma baxsanaa bal waaba aniga la hayay lacagtayda waxa la ila sugay dad la ururinayo mar la rabo in la wada qaado qaar baa ii wanjalo lug baan ka jabay lugtii marka way si xun iyadoo imuraaran oo de mar la igu duubay de ba gaariga la igu soo dhex tuuray Tripoli markaan ma dhakhtar fiican ma lugtii markaasi siyarada waa marsan bay ii kamantay haddana waan shaqo tagay 2 sanadood baan shaqaynayay carabta u xamaalayay kus aniga cid lacag siinaysa ma jirin maalmaha kamid ah markaa baan dad tagaya oo dadkii aanu mar soo wada galnay intii ka hadhay ila qaarkood lacagaa loo soo diray markiiba way bixeen iyo dad dambaan isku baranay baan guriga ugu imiyada doon la ururinay markaasaan iska ooyay markaas dadkii kale xasbeen maxaa kugu dhacay markaasaan intaan haystaa wax lacaga intaasina iima jaraysa doonta oo intaan soo ururiyay inaad ka hadhana ma doonaayo haddana magaalada cidlay mar kale igu noqonaysa ilaahay khayr ha siiye laba inanoo midna Puntland ka soo jeedo midna gobolka Togdheer ka soo jeedo umbeeri imisa ka dhiman inta anaga kala qaybsanayna inaka rogto Togdheer umbeeri ana bixin inaka kala wuxuu ana intaasaan bixinaya lacagtii doonta wixii yaraan haystay iyo labada nin inta iga bixiyeen bay noqotay doontii sidee baan ku koray Talyaani baan galay lugtii waa la jabiyay isbitaal baan galay xaalad baan maray isbitaalka markaan ka soo baxay meeshii dadka meel baan lagu xareeyay luuqadii wax sharciga yaraa baan ku qaadanay inaan xamaal tagay noqotay muddaan adigu shaqeeyay wax badan oo shaqaa meeshii ma taalo noloshu way iska adato kiniisad baan cuntada ka barinaa meelan hoydaan waay ma iga rumaysanaysaan muddo bilaban bas hooyanay basaska magaalada dhex mara gobolkan uu ka baxaa gobol kale uu tagayaa marka gobolka wuxuu gaarayaa waagu marka in yar ka harsan tahay way marba meel baa laga sii degaya ka horta ma tareen baa mise bas halka ayaan ku noqday noqonaysa way wixii ay baarkaas ku jiraayo waan soo dhageystay habeenkii baan raacaa lacag yar baan iska bixiyaa kursigaas hurda ii ah waa ii sariir subaxii markuu waagu marka meeshaas uu istaagi doono waagu bariya dib buu u soo noqonayaa dibtaasan haddana loo soo noqonaya maalinimo marka subax buu soo gelayaa magaalada subaxaasan ka dhaadhacaya marka meel walba marka cid uga shaqeeya meeshii baan aadaya waxaan kasoo shaqaystaan kasoo helaya because waxaan cuntadayda iyo guri iima wada kareynaya iima wada filo xaaladda markay saada maanta dambe nayahay haba seexanine wax intaad urursatay iska tahriib adu waa sii tahriibe faraas baan galay sharcigii baa lay diiday dib baan uga soo noqday Talyaani baa laygu soo celiyay waxaan gabadhii berigii ninka kaa qaaday ila waa iska qaadide iyadoo igama qaadin dawladda way qaaday ingiriiskii joogtay soo maaha ha Soomaalida halka joogtay ingiriisku amaanaysa ha ingiriis baan ugu toosiyay ingiriis baan galay